شينا معلولو كنا ما تتركي بهدلي كنا إن جماد فيسبوك يا تيك توك يا يوتيوب ميل والبولة فردي ترك هالتقال جني أو بوصا صديق الجوب أو محمود سلامة وعدو إسكعلي بس شلي وعايسي سنجلي فرصة حتى الإسارة وأوجدين محل يوساري وحال يوساري من تدكيس أمسينها الأركاي هذا الشيخ كل كلمة هذا كقري وحيري وقاعدين يا أنجا جيلي اسم جارو مدحنا لو جلي أو حان سنة كور كهلاي ما تيا قد يدو وسنجلي بهدلي يا إسلاتي السهرة هالجلاد هنا ده فقش يهو فقش ودالي أنا ما أنت إلى هاي مساعدي أو بهدلن فقش تيرو كوبو فينا واحد كتر هذا كامارني ندى بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كنا توعنا ونكسل لما نحرت إذا عاشق الجو كستي جور كسر جوكتان وبرنامج كان يفتيمين تا وأن عاور ربينا يسقط التانو شينا معلوم قاتك هبلا إيجي بابدوني يا برنامج كان إنا يسقط التانو وعكا أصلا يا برنامج ودوك سوق أنا سيشر جلست هذه السنة تقول جوكتان وصوتكو هذه كان النبي صلى الله وسلم على سيدنا محمد شينا معلوم ما تقعد بتكون شرتا ماشي عاد ما تكون شرتا وكل سوقي waxaan rabaa reer tolkay iyo hartuweyne iyo daarood iyo Soomaali baa aan u sheego shiina macluum maalinkii dagaalku gulaas caanod ka bilowday ilaa iyo maalinka maanta ah dibindaabiyo iyo dhibaato iyo iimaan la'aan eegay iyo colaad sokeeye iyo in dad tolo oo waxa way ehel ay kala dhintaan mooyo horta ninkaasi maalin kob cagaar kama soo degin maalin khayr kama shaqeyn maalmahay noogu daray ee dagaalku nagu socday oo waxa weeye madaaficdu nagu daadanaysay shiina intuu lacag soo qaaday ayuu dhalinyaradii halganka ku jirtay ee harti la dhaxiyimi mid waliba gaar u wacay nin waliba saas uu eego xoriyaha ma ku sheegaa oran dagaalada iimaan liida geed deer iyo geed gaabanba waxa weeye ninka la yiraahdo shiina macluul wuxuu u fuulay ma jeerteen iyo warsangali inay islaayaan cid walba ergaa baan u dirnay oo ku xoriyaha waxaad culaysid iimaanka laga qaadi ورنادر في بدنا dadka ku wadid kada dhagihi ilaahay waaniya waasaba dagaalkii oo nagu socda oo cabaad weyn la dagaalamayno argagixisadii SNM la dagaalamayno wuu Muuse Juudan lacag ka soo qaato markaas cid walba cajarafay labada dhagood baan ku xidhanay cid u jawaabtay iyo cid la hadashay iyo cid soo hadal qaaday midna ma jirin daayay baan la iska daayay faraha ka qaaday isaga gidaarka soo taabanay maanta godkii aan la doonay horta maanta waa dhex fadhiyaa shiina macluulow shalay waxaad miidiyaha igu fadhiday oo igu caayeysay anoo nin Axmed Harti oo dishisha inaan boosaaso intaan xabad ka rido dadka ehelka inay islaayaan baan horta aniga adigu isku dilay mood baan ka galay oo waxa weeye kaama hadlin sababta nin dal le baan ahaa meel baan u socday ujeedaanu lahayn han baanu lahayn meel baanu hiigsanaynay halgan baanu ku jirnay maanta halgankii aan ku jirayna waa ka soo falaxashtay maamulkii iyo deegaankii iyo dhulkii aan u dagaalamayay argixisada SNM ka saarayna waa ka saaray maantana maamulka Khaatumaysan waa dawlad dhameystiran miidiyaha hadii soo fadhiisatay waxa tiri boodari tolkii uma hadlo uma dagaalamo ee waxa weeye dishisha waxa weeye waxba uma qaban waa babul fikirkiini ninka ku afdheer waxa laali wixii idin qabta ma jirto shisheeye kalkaal ma jeerteen buu raacsan yahay dhulbahantu raacsan yahay Axmed Hartiyo beelo marxaatigiisa nin dhintay iyo nin dheer buu ka dhigaa dheego waxaad shalay lahayd qabiilada kale oo hartiga ah kuwa xataa igu dhiganaa laakiin warsangeli farsa xataa la isaare waa u jeedeen maxaa la igu saaray waxa la igu saarayay nin dadkiisa aaminsanaha la arkay halka ay dadka caarto Mareykanka tigto gabdho tolo oo waxa weeye warsangeliga ku soo dhaweeyeen lacag lagu siiyay baatir tolka aniga warsangeli wuxuu saaray faras buu saaray qadiyada warsangeli baan ka hadlaa anu warsangeli baan u taagnahay ma jirta ma iska cilinna dhulbahada iska cilinna adigoo leefleefaya Muuse Juudan iyo argagixisada SNM iyo door adigoo leefleefay bad aniga ugu dhaleeceynaysa oo tolkay Muuse noo kula dhaxdhacday oo niman dhalinyarada Muuse noo kula dhaxdhacday tiri boodar muxuu ogaaday ka raba ma ogaadeen baan wax ka sheegay ma ogaadeen baan maagay mase Xamse Cabdi Barre oo xabad nagu socoto oo yiri warba ayay tala ay hada joojiyo waxa way waa la doogayay la dacro ma ku maxbuus baata ra'iisul wasaare Soomaaliyeed baa ka hadlay Xasan Munaafiq baa ka hadlay laakiin dad boorka isu soo marisay oo niman dhalinyaro tolkay ku dhex dhacday baad bararo dhex fariistaan warsangeli qadiyadooda ma ka hadlay laakiin boodari qadiyadu waxa way Maxamuud Salebaan waxay leeyahay hana la amaano anu Maxamuud Salebaan amaani may cunfi iyo nacay iyo iimaan la'aan iyo gaajo ku haysa eega iyo duruuf ka muuqata baa waxa ka yeelsinaysa wax warsangeli kula qabayna maaha kugu koobaabana kuma soo dhaaftay
maaragtay aragtaan shiin oo lagu dhagan yahay cid buu caay laguma haysto annaga muxuu noo amaano waa ay cid u leeyahay muxuu annaga noo amaani way cid uu ka wada mid garanaysa ma jeertan waxa isku haysanaa shiinowna amaan way mana aha ee waa caloosh shaqayste munaafiq ah Puntland xagee laga burburin karaa bali waxa la boosa sadeeqa yaa degan niman Axmed Harti disha ba magaalada ul Amerika ah warnama kan kicinay foosta Mareer State leeyahay la soo riixay saas hal u eegay hawl kalaan ku maqnaayo nin waxa hoose ciidiyo hoosteed iyo dad agagas ah oo shiina macluum foosta u riixay anay wax weyn lama hayn mid ka weyn dan ka weyn baa laha ميديو صفرست نمر توقيو كل حدا بودري تلكو هذا مايو احمد هاتو هذا مايو مرعسو هذا مايو اوغادين بو ماغيا حقان اوغادن اسكو ارغ اوغادن وا تلكاي وا نيمان تلكاي oo ehel lay حقان اسكو ارغ wuxuu yiri marka hebel duqaysa reer hebel damqanaya halkaas uu ka raayo xamsan inuu ogaadeen ninkaas ku haystaa inuu warsagali baan qadiyada warsagali baan duurinay qadiyada warsagali meesha ku dambeysay iyo halka dhigtay iyo kadaabnimadaad iyo nahabnimadaad warsagalina waa tusaya hartina waa tusaya kabla laxna waa tusaya daaroodna waa tusaya Soomaalina waa arkaysa shiina macluulo waligi farmaajo eegay waxa weeye lacagta ku soo qaatay kabta la dhacay kabta hadda sheekh kulli kelmada hadda ka qoray wuxuu yiri ogaadeen iyo annaga geelayga isma gaaro madaxaana loo galiyay buu yiri moogtahay waa waxaan sanadka hor ka hadlayay intaas bal munaafiqnimadiisa iyo ximaarnimada iyo aqli xumada ku jirta eegay halka wuxuu iga tulbaraacaya maadaama boodhari wax xamse wax ka sheegay ogaadeen buu wax ka sheegay maadaama boodhari wax ka sheegay ninka la yiraahdo xamse ogaadeen buu wax ka sheegay lacag yar buu ku soo qaatay in boosa sadeeqa xabad ay ka dhacdo oo dadku isdilaan Mareer State baatiin anaguna maakhir baan nahay waxaan ku raxmo ku sheegaa anigu Mareer State na uma soo jeedo eegi hawl kala ku maqnahay walaal gacali magaaladaada gal maceeba miyaan caay miyaan xumay wali miyaad aragteen shiina macluun ano hadal haye miyaad aragteen inta xogtiisa waa la socday aniga isagu isku warhayn wuxuu yiri iska daasho ninka doonta la ciyaar dumaashana ana iskale war hawshaada wadaan ku maalin ma soo jawaabin waxa uu media ifadiyay oo icaayay oo nasabka icaayay oo iimaan la way ugu sheegay oo waxa weeye ogaadeen iyo cid walba doonaya inuu madaxa ii galiyo maalin ma soo jawaabin laakiin maanta waa u jawaabaya waliba si fiican baan ugu jawaabaya oo aan turaala lahayn shiina macluulo maakhir State meeda maakhirtii aad shalay tunka ku sideetay oo aad lahayd warsangali qadiyada warsangali baan ka hadlaa warsangali baan u loohay nin warsangali yabaanahay boodhari waa moorcase muxuu uga hadlaayahay qadiyada moorcasi Axmed Harti dishishe maxaa Maxamuud Salabaani ma jeertan ula dagaalami waayay maxaa dhulbaanta ka galay horta anigu dhulbaanta way dhalay hooyaday baa ah gabar Siciid Hartiya oo dhulbaanta oo Shoora oo Maxamuud Garaado Siyaad Maxamuud oo ugaariyahana oo Naalay Axmed oo reer Jibriil oo reer Yuusuf oo reer Guleeda bay dhashay ninkii xalaal ku dhashay baa xildhibaan عند مدافع للا دعينا عد كلمة هتشوفته هويضي يا أيدي يا سجاشن شربا موسى جودنا مدافع لدعي هرت أنا قرع ما هي ابن حلال بانحي بلد يجي نين هويدي يا أيدي يا أبتجي مدافع للا دعينا أو عموسنا وإن جمد أنا وإن جمد ماشي كاتها صار تكالي البانتات خفيفتي تلا بعد وحير وجلس والكاجد عايسيدي عايتمي سكست ضد كتلو يهين حدنا gabadha aad qabtid ee waxa weeye caruurta ku dhashay ehelkeeda iyo tolkeeda waa laga xishoodaa laakiin adu suuniyaad soo xiiratayo si aad bar Allah naxariisto waxa laga hayaa qof baahan gob maaha adu fakhriga qofna waa arkaa qofna fakhriga arka adu fakhriga gaajada aad aragtaa waa ta ku ilowsiisay dhul baahanta tolkaaya oo xididkaaya oo caruurtaada abtiyadood ah oo ubadku kugu horeeyay ilaahay ifka kugu siiyo aad arato ku il doogsatid gabadhi ku dhashay baad habeen iyo maalin isbadood iyo tolkood iyo eelkooda caayisa tolnimo iyo ehelnimo iyo wada dhalasha joogtay horta xishood iyo gobonimada saasad ka tahay inaad inuu gumeed tahay maanta ana ku tusaya oo marxaatu umada Soomaaliyeed uga dhigayo tolkay warsangali saldanada waa salaamaya gobi dhashay baatiin laakiin aniga iyo shiine macluul isu ka yar daawad asallahi caalamun wi cusbana masafar ba maanta waxaad joogtaa qadiyadii warsangali baa u dagaalamay warsangali tolkay warsangali ma jeertan Maxamuud Salamaan iska celiya waa waray marraxaad tolka oo dhan aad soo wada liqday eegi oo muqdishadii aad shalay waxa weeye leefleefisay aadan tagi karin oo Puntland oo dagaankaaga aadan tagi karin
oo khaatumo oo dagaankaaga aad tagi karin maanta cabaad weyn iyo argagixisada isna maad ka xidhatay inaad nahaab tahay oo tuugsada tahay oo yaa alla waxsiiyay tahay oo iimaan la dhahay baan ku sheegayaa waxaad magaca warsagalay shalay aad ku curaafaysanayso ku qaraabanayso yaa alla waxsiiyay aad ku lahayd oo gabdhaha warsagali iyo waxa weeye saldanada aad ku baaranaysay inay been ahayd maanta warsagali soo dagaal ku jira oo ceer gaabo u socda oo dagaaladiisu doonaya argagixisada SNM inuu waxa weeye dhagtaraadkeeda ku dhufto oo harti oo dhan diyaar u yahay baantaad hawtiri hargeysa ka digtay markaasaa inuu gumeed ku dhalay maxaad laga soo doontay anu kuma oran xataa muuse juudan kuma oran nin isaaq xitaa kuma oran islaam baa ku tiri islaam adoo hor fadhiya saa hor fadhiya bay ku tiri faqash ku dhalay maxaad laga soo doontay daawo waxa kugu dhacay ummaduna ha daawato faqashtaynu ku buufinayna waxaad ku tiraahdaa kaa maaranina de waka inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un war ilaan qofku bin aadanka ku damiir leeyahay oo diin leeyahay eegay buu yaxyaxa oo damqada qof sabool ah oo badow ah eegay ilaa ma damqado faqash ku dhashay maxay naga soo doontay bitir waa hor fadhiya kana maanta markaynu gumeeda yaa maanta inan gumeed ah eegay oo bahdilan ma aniga oo cayftaax boodhariya oo tolkay ceeb aanay ii hayn oo maanta reer hartiya iyo reer Soomaaliyeed maanta aniga eed iga shaganaya aanay jirin ilaa marka laga reebo nimanka cabaad weyn taarigixisada ay sanam ee yiri hooyada aan dillo oo gurigaaga aan dumino oo reer waxa weeye laascaanood aan dhulka dhigno raalina noqo anu taasan diiday laakiin adu waxaad ogolaatay eegay in ceer gaabo madaafiic lala dhaco oo waxa weeye hartiyo warsangali laga soo saaro eegay oo inan gumeed xiro qotiya ya argagixisay SNM eegay ay maanta ceer gaabo ka dhex bootaynayso maana inan gumeeda masaada inan gumeeda sideen u aqbali karaa eegay laascaanood ninka madaafiicda la dhacay eegay inaan hor fadhiisto damiirka ma leeyahay waxaad ugu gubaabinaysay ma jeerteen la dagaalan boosaas saxiib dekada albaabada u laab magaalada adiga iskale markaan ka diidan media hadii soo fadhiisato war maxaad ugu haysatay war ceebta aan galay maxay tahay war maana inan gumeed noqday misaada inan gumeeda war keenay maanta maradu ka dhacday war keenay maanta waxa weeye bahdilan islaan saar halgan baa ku leeyahay naga horka faqash ku dhalay inan gumeedka baahid waa dhow adu gaajo waa dhaaftay oo baahi waa dhaaftay macluul baad maraysaa midda kale fulay baata tiraba 3 jeer bay gacan ku saareen ido 3 jeer bay jarmalka kugu dileen oo gacan ku saareen fulay baata iyo qofka ku dhawanaaniya oo ku dila baad ka baqdaa tolka markaad aragtid nin hartiya nin dhulbaanta nin majeerteena nin wasangeliya markaad aragtid eegay xiniyaad yeelata xiniyo laba xiniyood inta la leeg baad yeelata waxa alla muusanaabaysay oo media la fadhiday majeerteen baa sidana majeerteen waa sidan dhulbaanta waa sidan majeerteen waa sidan warsangeli qadiyadooda wada qadiyadii warsangeli iyo gobonimadii warsangeli iyo saldanadii warsangeli iyo raggii media ku jiray ee warsangeliyaad maalin walba kula dhexdhici jirtay horta halkan ka salaamaya dhalinyarada warsangeli ee social media ku jirta ama guud ahaan hartiga eegay ee halkanka aan soo wada galnay anigoon kala reebay ma ku aad iyo aad bal maad reeb mahadsantiin wax badan oo aad maad ka diideen sheena macluulna eegay iyo ceeb uu cagaha inoo gelin lahaa iyo fuxsh iyo fadeexad uu cagaha inoo gelin lahaa oo isku day baalka xun ee doqonka ee badowga mid kale waa badow siyaad bara wax laga haya wuxuu yiraahdo askariga miigana waa naqaana askari magaalana waa naqaana laakiin dhoorra tuula ka yimi aanu ma aqaan meeda qadiyadu warsageli qadiyadu wallahi tan waa kula sugay oo billahi waa kula sugay qadiyadu warsageli meeda qadiyadu warsageli ma jeertan ku maagisay oo ribaanto ku maagisay eegay oo aniga igu caayisay meeda ila ay saad u waday baa saar halkan hoos dhigta inta ka badan haddaan wax ku sii yiraahdo adoo kala noqonay warsageli tolkayna mid baan leeyahay ceer gaabo inaynu qabsanaa waa lama huraan anoo ku hadlay afka harti weyne gaar ahaan Axmed harti moorcase iyo dishishana waxaan leeyahay diyaar baan u nahay khayr iyo baraka diirjinay assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh